asalaamu calaykum dhammaantiin kusoo dhowaada janalka doctor ajin maanta waxaynu ka hadli doonnaa wax afka qalaad lagu yidhaahdo gastrites ama loo yaqaano gastri. Si aad u ogaato gastriga waxa uu yahay waxa keena waxa lagu daweeyo iyo ugu dambeyn cawaaqibta ka dhalata haddii la daweyn waayo. fadlan dhammayso muuqaalka. haddaba waa maxay gastrites ama gastri? Gastriteska oo loo yaqaano gastri waa mid ka mid ah xanuunada ku dhaca habdhiska dheefshiidka, kaas oo ay keento caabuq ku samaysma gidaarka caloosha. Caabuqaas oo haddii la daweyn waayo ugu dambeynta keena nabarro iyo boogo ku samaysma caloosha, sidoo kale dhiigbax iyo kansarrada ku dhaca caloosha iyo mindhicirradaba. Waxaa loo kala qaybiyaa dhowr nooc oo kala duwan. Kow, erosive gastritis oo sidoo kale loo yaqaano acute gastritis, oo ah marka caabuqu xaalufiyo ama uu wada baabi'iyo dhammaan unugyadii ay ka samaysnaayeen gidaaradii calooshu ee loo yaqaanay gastric mucosa. Xaaladdan waxaa lagu ogaan karaa oo keliya in nudayaasha jidhka ee uu ku dhacay erosionka ama xaalufintaasi la baadho iyadoo loo sameynayo histological investigation. Haddaba waxa keena erosive gastritis. Kow, dawooyinka xanuun baabi'iyaasha ee loo yaqaano NSAIDs sida aspirin iyo ibuprofen oo uu qofku si xad dhaaf ah u isticmaalo. Waxa ay badanka keenaan dawooyinkani in gastroduodenal mucus waxyaabihii difaaci jiray meesha ka saaraan sida mucus bicarbonate barrierka iyo surfactantska ku yaala apical cells membrane-kooda. Sidoo kale prostaglandinska ku dhex jirtay dhiigga dhammaantood waa ay xaalufiyaan, meeshana waa ay ka saaraan, iyagoo sidoo kale yareeya qulqulkii dhiigga ee gidaarada caloosha. Taasina waxa ay badanka keentaa in heerka acidity-ga calooshu ay korodho, taas oo sababta in ay acidaasi waxyeesho caloosha maadaama oo aysan jirin meesha wax ka difaaca oo waxyaabihii ka difaaci jirayna laga saaray. Sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha keena erosive gastritiska stresska ama walwalka. Waxaa badanka keena severe physiologic stresska marka uu jidhku ku yimaado, ama xaalad aanu jidhku isagoon u diyaargaroobin ku dhacda qofka, sida burnka ama gubashada, troomada ama jugta, iyo sidoo kale in xubnaha qaarkood ay shaqadii gabaan oo ay fadhiistaan, sida marka ay dhacdo hepatic ama renal failure. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha keena erosive gastritiska viral infections, ama marka uu qofku qabo caabuqyada viruska ay keenaan sida cytomegalovirus, herpes simplex virus iyo aidiska, kuwaas oo daciifiya difaaca jidhka qofka. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha keeni kara erosive gastritiska cabista alcohol fara badan ama khamri badan. Cabista khamriga ama alcoholku isna waxa uu keeni karaa inuu waxyeello u geysto gidaaradii caloosha iyo sidoo kale dhiigbax qaybta sare ee habdhiska dheefshiidka ka yimaada inuu sababo. Labo, nooca labaad ee gastritisku waxaa loo yaqaanaa non-erosive ama chronic gastritis. Kani waa nooca labaad ee gastriga, kaas oo dhaawac yar soo gaadho gidaaradii caloosha. Noocan inta badan horey looma dareemo, waxa uuna qaataa muddo dheer in la ogaado. Badankana waxaa keena kow, Helicobacter pylori bakteeriyada loo yaqaano, taas oo ah bakteeriya ku jirta oo ku nool caloosha, gaar ahaan mucus layerka gudihiisa, muddo badanna halkaa ku sugnaata, taas oo ka timaada cuntada iyo biyaha wasakhaysan, sidoo kalena laga qaado dheecaanada ama candhuufta qof horey u qabay xanuunka. Waana waxa ugu caansan ee keena chronic gastritiska. Helicobacter pylori oo loo yaqaano sidoo kale H pylori bacteria waxay inta badan u dulqaadataa acid-da caloosha muddo badanna waa ay xamishaa, iyadoo oo waxyeesho intaas gidaarada caloosha ama dhaawacyo gaarsiisa gidaarada, gaar ahaan qaybta antrum-ka. Kadibna kolka calooshu ay soo deyso acidaasi waxa ay waxyeeshaa nabarradii iyo boogihii ay samaysay bakteeriyadu. Taasina waxa ay keentaa ugu dambeyn in boogahaasi ay weynaadaan iyagoo isku beddela ulcer. Ulcerskaasi haddii la daweyn waayo laftirkoodu waxa ay marka dambe isku beddelaan kansarro. Sidoo kale waxyaabaha keena non-erosive gastritis ama chronic gastritiska waxaa ka mid ah autoimmune gastritis. Xaaladani inta badan waxa ay ka timaadaa in difaacii jidhka ama antibodiyadii jidhku soo weeraraan unugyo ka mid ah unugyada caloosha, loona yaqaano parietal cells, oo ah unugyo iyo qanjidho ku yaala fundasta ama korbasta qaybta loo yaqaano ee caloosha, oo ah qaybta dhexe ee calooshu, kuwaas oo soo daaya hydrochloric acid iyo sidoo kale intrinsic factor-ka oo ah factorka sahla soo nuugista ama uptake-ga lagu sameeyo vitamin B12, kaas
oo qayb ka qaata samaysanka dhiigga. Sidoo kale wuxuu qayb ka qaataa soo nuugista ironta jidhka. Muddo badan haddaba markii ay gidaarada calooshu caabuqaasi kusii samaysnaado waxna laga qaban waayo, waxa uu keenaa in calooshii ay noqoto atrophied ama ay shiiqdo. Shiiqitaankaas waxa ay keentaa in ICD la soo dayn waayo, meeshana ay ka baxdo intrinsic factorkii sidoo kale isna uu meesha ka baxo. Haddaba haddii intrinsic factorkii meesha uu ka baxo, waxaa meesha iyadana ka baxaysa soo nuugistii vitamin B2 alifka iyo ironta. Taas qofka pernicious anemia ku keeni karta iyo sidoo kale chronic iron deficiency. Badanka waxaa qofka u heliya noocan autoimmune gastritis-ka, autoimmune kale sida autoimmune thyroiditis iyo wixii la mid ah. Waxaa kaloo ka mid ah chronic gastritis-ka waxyaabaha keena menetrier disease waxa loo yaqaano, oo ah xanuun aad u naadir ah kaas oo keena in parietal iyo chief cellskii calooshu ay bedelaan mucosal cells tiro badan, taas oo ugu dambeynta dhalisa in xidhmooyin mucosal cells ka samaysmaan ay ku samaysmaan iskuna gadaamaan caloosha oo dhan, iyaga oo hadhowna sababa in mucus fara badan ay soo daayaan. Mucusyada faraha badan ee la soo daynayana waxa ay keenaan in proteino badan oo la socda dhiigga ay kusoo furmaan ama leakage ay kusoo sameeyaan caloosha. Badanaana xaaladan lama yaqaano waxa keena. Haddaba waa maxay calaamadaha xanuunkan? Badanaa qofku waxa uu isku arkaa lalabo iyo matag. Matagaas oo noqon kara mid jaalle ama cagaar ah. Sidoo kalena marmarka qaarkood dhiig soo raaci karo matagaas, waxaana u dheer qofka oo raaci kara shuban aan aad u badnayn. 2. waxa uu sidoo kale qofku isku arki karaa daacsi iyo dibirsanaan badan. 3. xagga sare ee caloosha oo qofka xanuunta. 4. qandho badan. 5. wareer iyo dawakhaad badan. 6. dhidid badan. 7. laabjeex ama laab olol. 8. hur iyo kulayl badan oo uu qofka baabacooyinka iyo lugaha ka dareemo. 9. abateedka qofka oo xidhma ama ka yaraada. 10. miisaanka qofka oo yaraada ama hoos u dhaca. 11. dhiigbax ka yimaada qaybta sare ee dheefshiidka. 12. saxaro madow oo uu dhiig la socdo. Haddaba yaa u nugul xanuunkan inuu qaado? Waxaa u nugul dhammaan dadka hoos ku xusan sida 1. dadka sigaar cabka badan. 2. dadka da'da ah ee waaweyn. 3. dadka qaba viral infectionska aynu kor ku soo xusnay sida cytomegalovirus, aidiska iyo sidoo kaleeto herpes simplex viruska. 4. dadka walwalka iyo walbahaarku ku badan yahay. 5. dadka dhiig la'aanta qaba. 6. dadka kafee cabka badan. 7. dadka dawooyinka xanuun baabiyaasha ah sida xad-dhaafka ah u qaata. Haddaba maxaa lagu daweyn karaa xanuunka gastriga? Daweynta xanuunkan waxaynu u kala qaadi doonaa 2 qodob oo waaweyn oo ah non-medical iyo medically. Haddii aan u nimaadno non-medical, ugu horreyn waa in qofka hanaanka iyo qaab nololeedkiisa uu wax ka bedelo, kana fogaado dhammaan cuntooyinka hoose oo dhan. 1. cuntooyinka basbaaska leh. 2. cuntooyinka cas sida suugada iyo wixii la halmaala. 3. kafeega iyo dhammaan wixii kafayn leh oo dhan. 4. kajabka iyo xabuubta waxyaalaha ka samaysan. 5. shukulaatooyinka iyo waxyaabaha macmacaan oo dhan. 6. waxyaabaha jiiska leh. 7. cunista cuntada xilli aan xilligeedii ahayn, gaar ahaan quraacda. Sidoo kale waa in walwalka badan uu qofku iska yareeyo, jimicsi joogto ahna sameeyo. Qofka oo sigaar cabista iska yareeya. Qofka oo dawooyinka xanuun baabiyaasha ah iska yareeya haddii uusan iskaba dayn karin. Qofka oo biyo badan caba ugu yaraan 3 litir maalintii. Ugu dambeynna 2 malqacdood oo malaba iyo shaah cagaaran. Medically, haddii qofku intaas wax u tari waayaan, waxaa la siin karaa dawooyinka aashitada yareeya ee loo yaqaano antacids sida histamine antagonists. Waxaa kaloo qofka uu qaadan karaa proton inhibitors dawooyinka loo yaqaano. Waxaa kaloo qofka la siin karaa qalajiyayaal ama antibiotics. Sidoo kale dadka xanuun baabiyaasha qaata ee aan iska dayn karin, waxaa iyaga la siin karaa dawooyinka loo yaqaano coating agents si ay u ilaaliyaan dahaadhka iyo derbiga sare ee caloosha. Haddaba waa maxay cawaaqibka ka dhalan kara haddii la daweyn waayo? 1. boogo ku samaysma caloosha iyo mindhicirkaba oo loo yaqaano PUD ama peptic ulcer disease. 2. kansarka caloosha.
3 dhiig la'aan weliba chronic ah. haddii aad kanaalka ku cusub tahay fadlan rukumo kanaalka oo subscribe garee gambalaalkana furo. sidoo kale haddii muuqaalku ku cajabiyey fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada. mahadsanidin.